Assalaamu calaykum. Baaritaanada caafimaadka ee joogtada ah way fududahay in la iska indhatiro muhiimadda ay leedahay baaritaanada caafimaadka ee joogtada ah. Hase yeeshee, baaritaanada joogtada ahi keliya ma ahan sanduuq lagu saxayo liiska caafimaadkeena, ee waa tiirka daryeelka caafimaadka ka hortagga. Aan u gudagalno sababta baaristan ay lama huraan ugu tahay caafimaadka fayoobiqabka ugu fiican. Sababta koowaad, horay u ogaanshaha dhibaatooyinka. Baaritaanada caafimaad ee joogtada ah waxay u dhaqmaan sidii tallaabooyin firfircoon si loo ogaado arrimaha ama xaaladaha caafimaad ee suurtagalka ah ka hor inta aysan u gudbin xaalado aad halis u ah. Cudurro badan sida dhiigkarka, sonkorowga iyo noocyada kansarka qaarkood inta badan ma muujiyaan wax calaamado ah marka lagu jiro marxaladaha hore. Marka la maro baaritaanada, shakhsiyaadka waxay ku ogaan karaan xaaladahan marxaladaha hore marka ay yihiin kuwo la daaweyn karo oo la maareyn karo. Sababta labaad, ka hortagga horumarka cudurrada. Ogaanshaha hore ee baarista waxay kuu ogolaanaysaa waxqabadyo waqtigooda ku habboon, taas oo si weyn u xakameyn karta horumarka cudurrada. Tusaale ahaan, in la ogaado heerarka sare ee kolestaroolka goor hore waxay awood u siin kartaa shakhsiyaadka inay wax ka beddelaan qaab nololeedkooda ama ay bilaabaan daawooyin si ay hoos ugu dhigaan heerarka kolestaroolkooda. Sidaas darteed, waxaa hoos u dhici doono khatarada cudurrada wadnaha iyo istaroogga. Sababta saddexaad, badbaadinta nolosha. Waxaa laga yaabaa in ay sababta ugu weyn baaritaanada caafimaadka ee joogtada ah ay tahay awooddooda si ay u badbaadiyaan nolosha. Tijaabada baarista xaaladaha sida kansarka naasaha, kansarka ilmagaleenka iyo kansarka mindhicirada ayaa kaalin ka qaatay in la yareeyo heerarka dhimashada iyada oo la ogaanayo kansarka xilli hore oo la daaweyn karo. Sidoo kale, baarista xaaladaha sida HIV-ga iyo cagaarshowgu waxay u horseedi karaan in la ogaado waqti hore iyo daaweynta degdega ah. Taasina waxay hagaajin kartaa natiijooyinka caafimaadka iyo nolosha. Sababta kale, horumarinta caafimaadka. Baarista caafimaadka ma aha keliya in la aqoonsado cudurka, waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan kor u qaadista fayoobidaada guud. Baaritaanada joogtada ah waxay inta badan ku jiraan qiimeynta cabbirro caafimaad oo kala duwan sida cadaadiska dhiigga, heerarka kolestaroolka iyo body mass index BMI-ga. Markay si joogto ah ula socdaan cabbiradan, shakhsiyaadku waxay la socon karaan horumarkooda xagga yoolalka caafimaadka ah iyo waxay samayn karaan go'aanno xog ogaal ah oo ku salaysan doorashadooda habnololeed. Sababta kale, awoodsiinta shakhsiyaadka. Baaritaanno caafimaad oo joogto ah ayaa awood u siinaya shakhsiyaadka in ay mas'uul ka noqdaan caafimaadkooda iyaga oo ku hubeysan aqoonta ku saabsan xaaladahooda caafimaad. Shakhsiyaadku waxay si dhow ula socon karaan ama ula shaqayn karaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka si ay u horumariyaan xaaladahooda shakhsi ahaaneed ee ka hortagaan cudurrada iyo horumarinta caafimaadkooda. Habkan firfircoon wuxuu kobciyaa dareenka xakameynta iyo mas'uuliyadda ka saaran wanaagga qofka. Sababta kale, dhimista kharashaadka daryeelka caafimaadka. Daryeelka caafimaadka ee ka hortagga ah oo loo yaqaano preventive health care oo ay ku jiraan baaritaanada joogtada ah waxay u horseedi kartaa kaydin kharash badan oo mustaqbalka fog ah. Marka hore loo aqoonsado arrimaha caafimaadka oo si degdeg ah wax loogu qabto, shakhsiyaadku waxay ka fogaan karaan daaweynta qaaliga ah, isbitaal dhigista iyo qarashaad kale ee la xiriira daryeelka caafimaadka ee heerarka cudurrada horumaray. Sababta ugu dambeyso, jebinta caqabadaha helitaanka adeegyada daryeelka caafimaadka oo ay ku jiraan baaritaanada ayaa weli caqabad ku ah shakhsiyaad badan iyaga oo ay ugu wacan tahay caqabadaha kala duwan sida qarashka iyo wacyigelinta oo liidato. Si kastaba ha ahaatee, dadaallada lagu doonayo in lagu kordhiyo helitaanka adeegyada ka hortagga sida caafimaadka bulshada iyo rugaha ama xarumaha baarista caafimaadka ayaa door muhiim ah ka ciyaaro gaaritaanka dadka aysan gaarin weli ama aanan helin heerarkii ay u baahnaayeen daryeelka caafimaadka. Gabagabadii, baaritaanno caafimaad oo joogto ah keliya laguma taliyo ee waxay lama huraan u yihiin ilaalinta caafimaadkeena iyo fayoobiqabkeena. Adiga oo mudnaanta siinaya preventive health care oo ah daryeelka caafimaadka ka hortagga iyo samaynta baaritaanno caadi ah, shakhsiyaadku waxay ogaan karaan dhibaatooyinka goor hore kana hortagi karo horumarka cudurka uu samayn lahaa oo ugu dambeyn u horseedi karta nolol caafimaad leh. Xasuusnaaw, caafimaadkaagu waa hantida ugu qiimaha badan. U maalgeli si caqligal ah iyada oo loo marayo baaritaanno joogto ah. Halkaas ayuu noogu egyahay ciwaankeena. Waxaa inoo badan ciwaanka xiga hadduu alla idmo. khayr badan.